قلبي قصوبة صلاح حبيبك بسيحيو نفتنا سسابوك ويري ساكوكو إيمانيا انت سميري الله فنانة عانكا نمع ياسين عرالي او تلفيشة كارير كلها ليسي هوتيل ستاربكس او كيالا مقالة هرقيسة ايا وحاي جواب اداك بحصي laba qoys oo dhawaan mid kastaaba dhankiisa ku dooday in ay ka tirsan tahay marka adeega waxaan leeyahay de walaal aniga ha igu dawrsanine ma dhicin adduunka walaashay baa idiiday ee isoo caawiya dadkoo marka hore waa lagu soo caawiyay waan ogahay wixii ku caawiyay ee wax ku siiyay anna way siiyeen wixii ku taageeray anna way taageereen marna anigu kama xumee laga mana yaabo adeegay meel baan ku soo wada kornay walaashay baa tahay inaan eri xuntan ku raahdo inta media soo fariisto inaan hal eri xun adiga maqasho waa habeenkii xalay u tagay waxaan walaaltinimo ahayna kulama garab taagni adeegay waxa tiri ma soonto ma salaado adeegay 3 jir baa lagu geeyay Djibouti waad ogtahay 4 jir baa malcaamad laga diray Djibouti quraanka anoo haaf dhimiyay ba soo noqday 8 iyo dheeraad anoo baan sheekh lagu soo celiyay macallin qaasim baan galay waa tan sheekh quraan waan ku dhameeyay iskuul hoosan ka galay ku dhaxaan ka galay iskuulkii aan ka baxay ayaa hadana macallimad ka noqday taariikhda reer shaqo hayaan waan imi 2002gii ilaa iyo bariga aan Djibouti joogay reerku 5 jirkeyga bay Djibouti ugu qabsadeen ilaa 8 jirkeyga way haysteen hadana waxaan imi sheekh reerku intiiba way xiriirinayaan Ingiriiska joogay waxaan ku markaan baasaboorka qatan waadeen manay 2002gii ayaan aniga khadar daahir kule ilaa jannada ka waraabi ee sabriye oo odaga khadraha ka soo baxan Ingiriiska oo Hargeysa nimi waa markaan reerka isbaranay adeegay waan ku sheegay waan ku sheekh waan tagay way ogaayeen khadrayana 1 month baan ku soo maqnaan kula joogo wax walba aynu ka wada hadlay aqal kasto sheekhna waan garaaco waan galay waxaan ku waxaan doonayaa qof reer sheekho iyagu dhaarta 1 year sanad 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano qof yaqaan anoo magaaladii sayladii ururdaya sheekhoyle ciyaalkan la ciyaariyay ii dhaaran masaajidka ii gelaya ayaan u baahnaa reerkan bay sarkimeen hal igu dhaarto qof la xuulay adoo kureey oo weyn oo 8 jir 9 jir ayaa lagu keenay baan ku aragnay adeegay waxaan hadana reerkii ku soo noqday 2006kii sheekh baan kugu yimi waan ku yeeray guri khadad baan ku soo digay kaale reerkii baro kaale is arka tolka soo kaxayso kaale la hadla wada hadla baan kuuri waa diga diiday inta telefoon baan ku wada sheekh bad ku noqotay okay inta media soo fursatada walaalina ayda kaama mudniye anigana waa ogeeyay bariga hore halkan joogeed waxa doontaan ku hadlayseen ee laygu laana maxaad u hadli weeday waan ka xishooday inta media soo furisto inaan gabooyo macay karo ana ahaan jiray oo ku faani jiray madaxayna ii saaran yihiin eri xun uma qooro nimca Yaasin caraale fanaanad caan ku ah Soomaalida ayaa dabcan tahay muddadii hadda maqnayd waad ogeyd laba qoys ayaa hadlay oo mid waliba leeyahay annaga inaga dhalatay nimca Yaasin caraale oo waliba qaar kood badeen ay arrimo ku doodayaan adigu maxaad ku qancinaysaa dadkaas in badri aad baad u mahadsan tahay runtii anigu ku taageeraa wariyaashan taageera baa tahay waana ku faraxsanay maanta inaad wareysato Hargeysa waxaan u imi inaan walaashay adeega aan dheenano kala qaado labadii reerna aan kala saaro sheekaduna halka ku dhamaato ayaan u imi DNA digno loo kala qaado anigii walaashay hal allaale halkii ay rabaana waan raacaya diyaar baan u ahay ma allaale meesheedan wad noo raacaysa diyaar baan u ahay dad badan oo ku taageerana way jiraan dadka arintan ku jahawareeray ee ku taageera maxaad oranaysaa badriyo aaba iyo hooyo aad jecel oo fiican bay soo korsaday waxay baray quraani baray iskuuligu daray si fiican ay soo koriyay oo dad aad iyo aad u wanaagsan marka horta totally inaan ka hadlo arinta ma rabin oo media soo fariisto marka horena waad ogeed intii xaqli igu kacday ee aamusay meen hadlay xalay markii la soo diray adeego iga caayisay media ayaa isoo fariisisay laakiin waxaan u imi asxaabta aniga jecel faaniskayga walaalahay Soomaaliyeed meel kasta joogaanba aad baan idin salaamaya
anigu waxaan aaminsanahay inaan ku qanacsanahay in adeega DNA laga qaado. That's all. wax kale Hargeysa uma nimaan tigid baan soo goostay ilaa bisha dambe waan joogay 20keeda intaasaan doonayaa inaan ku dhamaysto arintayda. adoo fanaanad caana oo fanka badan ku soo jiray in arin isqabsi laba qoysi ay timaado dareecankayba adiga ku muujinaysa. wallahi horta badriyo dareen aniga aad igu wanaagsan bay ii muujinaysa sababtoo ah in adeer sheekadan waxaan ugaan wata maaha waxay adeeg wadatana maaha waa wax xagga Ilaahay ka socda. Ilaahay baa wata أنا ما وطوا أديك ما وطوا بقر كوطا شكلنا وسك صعدانسا لكنse واحد درينا هو هذا عنك قبل ما شرتو لكنse وح أنا أمسنا هاي حدي ما أنت عن هالها قبل الصوماليات أقل كيد يسكتشوا تفلان هذا هاي نون عدينا أقولن أديكنا ميري مسافر ستين وتمتعدين الساعة وياي قبل ولا شيء ديت هو واتما ولا شيء أيالورني وأنا كان قام ولا شيء لكن waxaan ka xumay aniga fanaanad caano la yaqaano taasi adeegna iga faa'iideysanaysa inuu isaara guriba wana misanahay fanaanada oo hadalkeeda si wadata waxay intaas raacisay horta waxaan ku faraxsanahay maanta Somaliland heerkii gaadhay waan ku faraxsanahay madaxweynaheena maanta mudane Musabixi Cabdi talaabada uu qaaday ee sharafta leh mudnaanshaha leh maxay haydeen qiirada leh wanaagsan maanta adowgu ku jabay ee uu qaaday aad baan ugu faraxsanahay waan ku hambalyeynaya waxaan leeyahay madaxweynaha hambaliyo guuliyo gobonimo halka ka sii wad horaa loo soo cunayaa ayaan soo waday marka badraawiyo horaa loo soconayaa ni Cabdi Jibaar hayaan ka soo raac horaa loo soconayaa hayaan ka soo raac marka dawladda waxaan leeyahay waan idin salaamayaa arrinteedana kulliba Somaliland bay u taalaa. Battery Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.